بسم الله الرحمن الرحيم. haddii lagu ka hadalo afka iyo luqadda Soomaaliga afka Soomaaliga iyo Soomaalidu ku hadasho waxaa kala duwan laba qaybood, qayb la dhaho maxaa tiri iyo qayb la dhaho may. sidoo kale luqaddu waxay ka kooban tahay qaybo kala gedisan sida gabayga, geeraarka, waamburka, jiiftada, masafada, heesta, shiribka, gurowga iyo wixii lamid ah. dhammaan qaybahaasi waxay ka mid yihiin qaybaha ay leedahay luqadda af Soomaaligu. luqadda waxaa la qoray sanadkii 1972 ilaa wixii intaa ka horeysay waa lagu hadli jiray laakiin ma qornayn. laakiin wixii intaa ka dambeysay luqadda waa la qoray, waxaana lagu qoray fartii Cusmaaniyada ahayd ee uu keenay Allah u naxariistay Ismaaciil Yuusuf Galadiid. luqaddu aad iyo aad bay muhiim u tahay in la ilaashiyo oo la ilaaliyo hidaha iyo dhaqanka, oo qof kasta uu xil iska saaro si uu luqadda u dayactiri lahaa.